muqdisho ee 20 sano la raadihayay waa tii la yiri 7 xubnood oo 4.5 lagu qaybsan ayaa la soo helay ugaas maxamuud cali ugaas cabdullana wuxuu yiri waa ilhaano waana dulmi cad oo geed loogu gamban mana aqbali doono muqdisho 3 milyan oo degan xaqoor amba hal la siiyo ama hal iska daayo dawladana iyada waqtigeeru gabagabayahay isku mashquulin ummadan ma haan degan warugaas maxamuud wuxuu yiri dawladan meel laga taageersan yahay oo amarkeeda laga qaad oo canshuurta laga bixiyo muqdisho ka jirta xoolahana kuwa irmaano nacfiga la waa la dhaqaalaystaa marka maxay ugu jisaaraysaa dawladdu bulshada u daacada oo ka amar qaadanaysa war anigu ugaaska waxaan ka baqayaa raggii ay dawladdu u diyaarisay cid kastoo dhaliishaba inay u jawaabaan in ugaaska lagu soo qataaraan ka baqaya war ma waalan tahay ma ugaaska qaran duris nin Soomaaliyeed ku sheegi kara warnamayo Professor Dood Maali Daweed wuxuu yiri this is our mother town muqdisho lama wada leh waa la wada degan yahay hadalkaas run waa u dhawiye laakiin ma yeelayno arday waana qiraahada xaano ka keena mugga warnamiyo ani warsiin hay xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow oo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka la handiyaari wali eray dadka muqdisho jeegan leho 24 saan qayleeyaan wal haabiyara to ku jir mal aragaw muqdishona arantiya mayba go'aan sax ee ka deero kore baarlamaanka anu waxaan qabaa xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow muxuudiin darba weyn in loo ballamiyo agdiisa tirrig ma kaaro kor muxuudiin darba weyn hoobu saro tirsada Ibrahim Isaaq Yarow sida buushatay waa tirsaday wariya warnamayo xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow anigu waan la qabaa arrinka uu sheegay muqdishona waa caasimad Soomaaliyeed cid gaar u sheegan kartaana ma jirto waxaan ku talinayaa in gudoomiyaha gobolka Banaadir laga bilaabo maanta loo sinaado sababtoo Abu Raas iyo Xasan Abshirba muqdisho gudoomiyayaal bay ka noqdeen labana buuq jirin aryaadaha federaalkaad keenteena fidnada keenay minay kacaanka soo naqa yaa taastii Hargeysa bila rafle iyo gaani iyo Morgana madax ka soo naqday war kacaankii October ay inkiga dhigantahay midka Febraayo miyaadan u jeedin war waxa la yiri Soomaalidu danteediyo duruufaha dalkeediyo habkii dawladnimada horta daba maraysa aryaa waxa kale la yiri Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayso wartaasi Soomaalida hore aha war Soomaalida damba abwaan Abdiduuha sheegi Soomaalidu way bugtaa basteed wayo la hubi inuu udur ba'an helay bidhaanta laga gartaa bidhaanta laga gartaa yaka timbrey hormaanta oo way dhageysanayeen magaalada Muqdisho caasimad Soomaaliyeed iyo magaalo qabiil iskuma noqon kartaa mid u daaya aryaadaha idinkoon iswareerin laashin Xasan Abuukar wuxuu yiri hoygaaga ninku soo hoydo kuhandada ya waa habar hoygaaga ninku soo hoydo kuhandada ya waa habar haya war xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo arinta Muqdisho ka hadlay wuxuu yiri guddiga baarlamaanka waxay la wareegayaan ha iska daayaan hadii kale waxa ka dhalan doona kacdoon dadweyne war xildhibaan Jeesow wuxuu yiri 7 xubnood oo Soomaali loo qaybinayaa Muqdisho ma qusayse yaa fidna la abuurin oo dadka la isku dirin wareedha dadka Muqdisho jooga miyaanay Soomaali ahayn oo 4.5 ka mid ahayn hadii la yiri 4.5 wax lagu qaybsanaya waxa looga buuqaya waryaara Professor Yaxye Caamir wuxuu yiri xildhibaanada baarlamaanka raasi Casayr iyo raasi Kamboni ka shishay ka wada yimaadeen marka in la yaado Muqdisho ayaheeda go'aan ka gaar iyagu xaq uma laha war baarlamaanku waa hay'adii dalka ugu sareysay yaa go'aankiisa diidi kara naga tag ununka diidna hadda ka hor Faaraxseefay wuxuu yiri nimaan saafara haaside rabtay salka dhigtaan suuga niman saafara haaside rabtay salka dhigtaan suuga maahino oo hadday salka dhigi weydana yaa heesla saabayso waa suuga war baarlamaanku hay'adii sharci dejinta dalka ugu sareysay inuu yahay waa caddahay laakiin markii waqtigu ka dhamaado qaab qowsiinka maxay ugu soo beegeen arrinta Muqdisho xasaasiga araan hal wal mooshiidi maroodig meel isku guuraw geedo ku siibay wala eri warada ka hor Somaliland madaxweyne Daahir Riyaale Kahin markuu xukunka ka sii dhacayay wuxuu magacaabay 7 gobol 7 xubnood ay imka Banaadir loo magacaabayna waxaan ka baqayaa inay kuwa la mid noqdaan war hadda ka hor markii kaanka dhiyow hay
madawiine siyaad barmayba dadweynaha kale ballamay inoo beero faladan sii ku dambaytin wala ogaay widaaye warnimay waxaan la yaabanahay madaxweyne farmaajo 3 sano la soo dhaafay dadka lama hadlin saxaafaddana ma hor imaan heshiis baarlamaanka la hor keeno madaxweynuhu soo galayna ma jiro marka hadda waxaan la yaabanahay maadaama uu musharax yahay kaambeynna soo socdo muxuu dadka u sheegi doonaa mugama marka xeerayo fandhaal kala dhaceena qayladhaan la bilaaba war dogoonsana garantumis badana mu'aarnimo badana fiiribo ay doohankadalaw dadka ma hor imaan yaan dilingiley madawiiniga qaragii sooba markii dhii maalintii kihigdi fagaaraha isbartiibi dadka hortiyo haroogsidii usoo tuuto galan shabaaba ka duulanana ballinga haa walaari shabaaba ka duulanana ballinga haa doolka faas ma ay wariya war ma duulay ma duulay war qarandumis warkiisa dhagaysanine bajaajlayaasha markay banaanbaxayeen madaxweynuhu waa kii yidhi dad dana gaar ah lahaa ka dambeeya banaanbaxan gacan birahana ku qabanaynaa war madaxweynuhu wuxuu yidhi dowladdan waa dowladdii shacabka ammaane idaacadna waa ku darsatay war madaxweynuhu wuxuu yidhi dowladdoodu waa dowlad fiican astaanta qarankana wax lagama sheego aryaadhaha madaxweyne farmaajo waagi oo ra'iisul wasaaraha naqday waxa uu dhihi jira xukuumaddayda tayo aa la yidhaah ka kadib muggi xilka laga qaadana waxa uu bilaabay qaaraan qaran walax la yidhaaho kadib mugga kaambeynka galana waxa uu bilaaba haddana danta dadka iyo dalka haddaana waxa uu bilaabay nabad iyo nolol ee berkee loo raacaa waa yaabnaye war dadka maanta xoogga wadaniyiinta ahba 2016 waxay bilaabeen barnaamij la yidhaha fursad fan oo dadka dhan min $1 looga aruuriyey meelay ku dambaysana lama yaqaan war cabdinuur iyo cabdi baaruud ayaa la weydiinayaa fursad fan meeshay ku dambaysay aryaadhaha waxaan idin weydiiyey dalkaaga $1 ku dhiso horta intay ku dambaysay war musharaxa rajada musharaxa la baxay xisbiga dimuqraadiga maraykanka Joe Biden wuxuu yidhi Ameerika waxay u baahan tahay hogaamiye macno leh oo garasho leh waryaha Ameerika hanala aadin abees ha ku cuntee Puntland waxa la yidhi khilaafkii waa ka heshiiyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa war shalay dhaqaatiir kulantay waxay yidhaahdeen dhaqaatiirtii gololay lagu dila haddaan waxba laga qaban dhakhtar dambe Soomaaliya kama shaqayn doono yaa ay koo shaqay hayaaba la laayay minay shaqay diidaan yaa warka hore dheg jalaq u siiha abdulo walanko daraaka wade war dhaqaatiirta in la laayaa waa sharci darro dadka ka caagan dilkayna ka mid yihiin war sheekada waa laga soo tegayo maraykanku wuxuu bilaabay saxaafadda inuu caburiyo nin xoog lahaa xabagta goosta ahaa taas war qoladaasi xorriyaddii iyo xuquuqul insaanka ay sheegan jireen xagee ka baxday war caalamka oo dhan baa keebla yurur isu wada bedelay war barnaamijkaas Trump baa u dhameeyey taladii bacday waxaa la yidhi 2020 caalamka oo dhan kala taris baa ka jira war maahe kaanti kolaalintiisa maash u baabaday waa naga dhaafay naga taga tawfiiqda Allah idin waafajiye kursigaasan caashaqae madaxweyne koli dhahaye waxaan ahay madaxweynaha dowladda Soomaaliland waxaan ahay madaxweynaha dowladda Jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda Galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda Puntland anna waxaan ahay madaxweynaha Hirshabeelle waxaan ahay madaxweynaha dowladda Banaadir State war ana waliba ahaa madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ay ii haysto kore waan ii gobsado kore anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda Everland ka muqdisho ee 20 sano la raadihayay waa tii la yiri 7 xubnood oo 4.5 lagu qaybsay ayaa la soo helay ugaas maxamuud cali ugaas cabdullana wuxuu yiri waa ilhaano waana dulmi cad oo geed loogu gamban mana aqbali doono muqdisho 3 milyan oo degan xaqoora amba hal la siiyo ama hal iska daayo dawladana iyada waqtigeeru gabagaba yahay isku mashquulin ummadan ma haan degan
war ugaas maxamuud wuxuu yidhi dawladdan meel laga taageersan yahay oo amarkeeda laga qaad oo canshuurta laga bixiyo muqdishaa ka jirta xoolahana kuwa irmaanoo nacfigale waa la dhaqaalaystaa marka maxay ugu jisaaraysaa dawladdu bulshada u daacadda oo ka amar qaadanaysa war anigu ugaaska waxaan ka baqayaa raggii ay dawladdu u diyaarisay cid kastoo dhaliishaba inay u jawaabaan in ugaaska lagu soo qataaraan ka baqaya war ma waalan tahay ma ugaaskaa qarandumis nin soomaaliyeed ku sheegi karaa warnimayo brofesor doob maalin dhaweed wuxuu yidhi this is our mother town muqdisho lama wada lehe waa la wada degan yahay hadalkaas run waa u dhowye laakiin ma yeelayno arday waana qiraahedda xaanoo kaa keena mugga warnimiyo ani warsiinhay xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo ah guddoomiyaha guddigii doorashooyinka baarlamaanka lahan diyaari wali erey dadka muqdisho jeegjeegan leho 24 saangayleayaan wal haabayarato ku jiro mal aragaw muqdishona arantiya mayba go'aan sax ee ka deero kore baarlamaanka anugu waxaan qabaa xildhibaan ibraahim isaaq yarow muxuudiin darba weyne in loo ballamiyo agdisa tirrig mahakaaro kor muxuudiin darba weyne hoob uu saro tirsada ibraahim isaaq yarow sida buushatay waa tirsaday waryaa warnimaya xildhibaan ibraahim isaaq yarow anigu waa la qabaa arrinkaa uu sheegay muqdishona waa caasimad soomaaliyeed cid gaar u sheegan kartaana ma jirto waxaanan ku talinayaa in guddoomiyaha gobolka banaadir laga bilaabo maanta loo sinnaado sababtoo ah aburaas iyo xasan abshirba muqdisho guddoomiyayaal bay ka noqdeen lamana buuqi jirin aryaadhaha federaalkaad keenteenaa fidnada keenay minii kacaanka soo naqaa yaa taas diidan hargeysaba bila rafle iyo gaani iyo moorgana madax ka soo naqday war kacaankii oktoobar ay inkaga dhigan tahay midka febraayo miyaadan u jeedin war waxaa la yidhi soomaalidu danteediyo duruufaha dalkeediyo habkii dawladnimaday horta dabamaraysaa aryaa waxaa kaloo la yidhi soomaalidu qab iyo kiibir marna qaadan mayso wartaasi soomaalida hore ahaa war soomaalida dambe abwaan abdidhuuha sheegi soomaalidu way bugtaa basteed wayoo la hubi inuu udur ba'ani helay bidhaanta laga gartaa bidhaanta laga gartaa yaka timbirey war maanta oo dhan waa idin dhegaysanaye magaalada muqdisho caasimad soomaaliyeed iyo magaalo qabiil iskuma noqon kartee mid u daaya aryaadhaha idinkoon iswareerin laashin xasan abuukar wuxuu yidhi hoygaaga ninkuu soo hoydo kuhandaadaya waa habar hoygaaga ninkuu soo hoydo kuhandaadaya waa habar haya war xildhibaan daahir amiin jeesow oo arrinta muqdisho ka hadlay wuxuu yidhi guddiga baarlamaanka waxay la wareegayaan ha iska daayaan haddii kale waxaa ka dhalan doona kacdoon dadweyne war xildhibaan jeesow wuxuu yidhi 7 xibnoodoo soomaali loo qaybinayaa muqdisho ma qusaysee yaan fidna la abuurin oon dadka laysku wareedhaha dadka muqdisho jooga miyaanay soomaali ahayn oo 4.5ka ka mid ahayn haddii la yidhi 4.5 wax lagu qaybsanayaa maxaa looga buuqayaa waryaare brofesor yaxye caamir wuxuu yidhi xildhibaanada baarlamaanka raasi casayr iyo raasi kambooni ka shishay ka wada yimaadeen marka in la yidhaahdo muqdisho ayaheeda go'aan ka gaara iyagu xaquma laha war baarlamaanku waa hay-addii dalka ugu sarraysay yaa go'aankiisa diidi kara naga tag ununkaa diidne hadda ka hor faarax seefay wuxuu yidhi nimaan saafaara haasiide rabtay salka dhigtaan suuga niman saafara haasiide rabtay salka dhigtaan suuga maahino oo hadday salka dhigi weydana yaa heeslaa saabayso waa suuga war baarlamaanku hay-addii sharci dejintoo dalka ugu sarraysa inuu yahay waa caddahay laakiin markii wakhtigu ka dhammaado qaabaqowsiinka maxay ugu soo beegeen arrinta muqdisho xasaasiga ara'aan halwalmooshiidii maroodig meel isku guuraawgeedo oo kusi siibay waa la eri war hadda ka hor somalilan madaxweyne daahir riyaale kahan markuu xukunka ka sii dhacayey wuxuu magacaabay 7 gobol 7 xubnood iminka banaadir loo magacaabayna waxaan ka baqayaa inay kuwaa la mid noqdaan war hadda ka hor markii ka'aanka dhiyow haay madawiine siyaad barmayba dadweynaha kale ballamay inoo beeroo faladan tiiko dambaytin wala ogaay widaayey warnimay waxaan la yaabanahay madaxweyne farmaajo 3 sanoo la soo dhaafay dadka lama hadlin saxaafaddana ma hor imaan heshiis baarlamaanka la hor keeno madaxweynuhu soo galayna ma jiro marka hadda waxaan la yaabanahay maadaama uu musharax yahay kaambeynna soo socdo muxuu dadka u sheegi doonaa mugama marka xeerayo fandhaal kala dhaceena qayladhaan la bilaaba war dogonsana garan dumis badan
badana mu'aaradnimo badana fiiribo ay doohan kaadalaw dadka ma hor imaan yaa intan ingilay madawiiniga qaragii sooba markii dhii maalintii kihigdi fagaaraha isbartiibi dadka hortiyo haroogsidii usoo tuuto galan shabaaba ka duulanana ballan ahaa walaari shabaaba ka duulanana ballan ahaa doolka faas ma ay wariya war ma duulay ma duulay war qarandumis warkiisa dhagaysanine bajaajlayaasha markay banaanbaxayeen madaxweynuhu waa kii yiri dad dana gaar ah laha ka dambeeya banaanbaxan gacan birahan ku qabanayna war madaxweynuhu wuxuu yidhi dawladdan waa dawladdii shacabka ammaane idaacadna waa ku darsatay war madaxweynuhu wuxuu yidhi dawladdoodu waa dawlad fiican astaanta qarankana wax lagama sheego aryaadhaha madaxweyne farmaajo waagi oo ra'iisul wasaaraha naqday waxa uu dhihi jiray xukuumaddayda tayo aa la yidhaa ka kadib mugga xilka laga qaadana waxa uu bilaabay qaaraan qaran walax la yidhaaho kadib mugga kaambeynka galana waxa uu bilaaba haddana danta dadka iyo dalka haddaana waxa uu bilaabay nabad iyo nolol ee berkee loo raacaa waa yaabnay war dadka maanta xoogga wadaniyiinta ahba 2016 waxay bilaabeen barnaamij la yiraahdo fursad fano dadka dhan min $1 looga aruuriyay maalay ku dambaysan lama yaqaan war cabdinuur iyo cabdi baaruud ayaa la weydiinayaa fursad fan meeshay ku dambaysay aryaadhaha waxaan idin weydiiyey dalkaaga $1 ku dhiso horta intay ku dambaysay war musharaxa rajada musharaxa la baxay xisbiga dimuqraadiga Mareykanka Joe Biden wuxuu yiri Ameerika waxay u baahan tahay hogaamiye macno leh oo garasho leh waryaa Ameerika nala aadna bees ha ku cuntay Puntland waxa la yiri khilaafkii waa ka heshiiyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa war shalay dhaqaatiir kulantay waxay yiraahdeen dhaqaatiirtii gololay lagu dilaadaan waxba laga qaban dhakhtar dambe Soomaaliya kama shaqayn doono yaa ay ko shaqay hayaaba la laayay minay shaqay diidaan yaa warka hore dhig dalaq u siiha abdulo walanko daraku wade war dhaqaatiirta in la laayaa waa sharci darro dadka ka caagan dilkayna ka mid yihiin war sheekada waa laga soo tagayo Mareykanku wuxuu bilaabay saxaafadda inuu caburiyo nin xoog laha xabagta goosta ahaa taas war qoladaasi xorriyadda iyo xuquuqda insaanka ay sheegan jireen xagee ka baxday war caalamka oo dhan baa keebla yurur si wada bedelay war barnaamijkaas Trump baa u dhameeyay taladii baaday waxaa la yiri 2020 caalamka oo dhan kaleetis baa ka jira war ma kaanti qolarintiisa maas u baabaday bana ga dhaaf naga taga tawfiiqda Allah idin waafajiye kursigaasaan caashaqae madaxweyne koli dhahaye waxaan ahay madaxweynaha dawladda Soomaaliland waxaan ahay madaxweynaha dawladda Jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dawladda Galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dawladda Puntland anna waxaan ahay madaxweynaha Hirshabeelle waxaan ahay madaxweynaha dawladda Banaadir State war ana waliba aha madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ay hay'ad kore waan ila gobsada kore anna waxaan ahay madaxweynaha dawladda Everland ka muqdisho ee 20 sano la raadihayay waa tii la yiri 7 xubnood oo 4.5 lagu qaybsay ayaa la soo helay ugaas maxamuud cali ugaas cabdullana wuxuu yiri waa ilhaano waana dulmi cad oo geed loogu gamban mana aqbali doono muqdisho 3 milyan oo degan xaqoor amba hal la siiyo ama hal iska daayo dawladana iyada waqtigeeru gabagaba yahay isku mashquulin ummadan ma haan degan warugaas maxamuud wuxuu yiri dawladdan meel laga taageersan yahay oo amarkeeda laga qaad oo canshuurta laga bixiyo muqdisho ka jirta xoolahana kuwa irmaan oo nacfiga leh waa la dhaqaalaystaa marka maxay ugu jisaaraysaa dawladdu bulshada u daacadda oo ka amar qaadanaysa war anigu ugaaska waxaan ka baqayaa raggii ay dawladdu u diyaarisay cid kastoo dhaliishaba inay u jawaabaan in ugaaska lagu soo qataaraan ka baqaya war ma waalan tahay ma ugaaska qaran dumis nin Soomaaliyeed ku sheegi kara warnimayo
brofesor doob maalin dhaweed wuxuu yidhi this is our mother town muqdisho lama wada lehe waa la wada degan yahay hadalkaas run waa u dhowye laakiin ma yeelayno arday waana qiraaheday xaanoo kaa keena mugga warnamiyo ani warsiinhay xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo gudoomiyaha guddigii doorashooyinka baarlamaanka lahan diyaari wali erey dadka muqdisho jeegan leho 24 saan gayleeyaan wal haabiyara to ku jiro mal aragaw muqdishona arantiya mayba go'aan sax ee ka deero kore baarlamaanka anu waxaan qabaa xildhibaan ibraahim isaaq yarow muxuudiin darba weyne in loo ballamiyo agdisa tirrig ma ka kor muxuudiin darba weyne hoobu saro tirsada ibraahim isaaq yarow sir buushatay waa tirsaday wariya warnamaya xildhibaan ibraahim isaaq yarow anigu waa la qabaa arrinkaa uu sheegay muqdishona waa caasimad Soomaaliyeed cid gaar u sheegan kartaana ma jirto waxaanan ku talinayaa in gudoomiyaha gobolka Banaadir laga bilaabo maanta loo sinaado sababtoo ah Aburaas iyo Xasan Abshirba muqdisho gudoomiyayaal bay ka noqdeen labana buuqi jirin aryadaha federaalkaad keenteena fidnada keenay minay kacaanka soo naqaa yaa taastiidan hargeysaba bila rafle iyo gaani iyo moorgana madax ka soo naqday war kacaankii October ay inkiga dhigan tahay midka Febraayo miyaadan u jeedin war waxa la yiri Soomaalidu danteediyo duruufaha dalkeediyo habkii dawladnimada horta daba maraysa aryaa waxa kale la yiri Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayso wartaasi Soomaalida hore aha war Soomaalidu damba abwaan Abdiduuha sheegi Soomaalidu way bugtaa basteed wayo la hubi inuu udur ba'an helay bidhaanta laga gartaa bidhaanta laga gartaa yaka timbirey war maanta oo dhan waa idin dhegaysanayee magaalada muqdisho caasimad Soomaaliyeed iyo magaalo qabiil iskuma noqon kartaa mid u daaya aryaadhaha idinkoon iswareerin laashin xasan abuukar wuxuu yidhi hoygaaga ninkuu soo hoydo kuhandaadaya waa habar hoygaaga ninkuu soo hoydo kuhandaadaya waa habar haye war xildhibaan daahir amiin jeesow oo arrinta muqdisho ka hadlay wuxuu yidhi guddiga baarlamaanka waxay la wareegayaan ha iska daayaan haddii kale waxaa ka dhalan doona kacdoon dadweyne war xildhibaan jeesow wuxuu yidhi 7 xubnood oo Soomaali loo qaybinayaa muqdisho ma qusayse yaan fidna la abuurin oo dadka la isku wareedha dadka muqdisho jooga miyaanay Soomaali ahayn oo 4.5 ka kamid ahayn hadii la yiri 4.5 wax lagu qaybsanaya waxa looga buuqaya waryaara brofesor Yaxye Caamir wuxuu yiri xildhibaanada baarlamaanka raasi Casayr iyo raasi Kamboni ka shishay ka wada yimaadeen marka in la yaado muqdisho ayaheeda go'aan ka gaaray iyagu xaq uma laha war baarlamaanku waa hay'adii dalka ugu sareysay yaa go'aankiisa diidi kara naga tag unun ka diidnay hadda ka hor Faarax Seefay wuxuu yiri nimaan saafara haaside rabtay salka dhigtaan suuga niman saafara haaside rabtay salka dhigtaan suuga maahino oo hadday salka dhigi weydana yaa heeslaa saabayso waa suuga war baarlamaanku hay'adii sharci dejinta dalka ugu sareysay inuu yahay waa caddahay laakiin markii waqtigu ka dhamaado qaab qowsiinka maxay ugu soo beegeen arrinta muqdisho xasaasiga araan hal wal mooshiidi maroodig meel isku guuraw geedo ku siibay wala eri war hadda ka hor Somaliland madaxweyne daahir riyaale ka markuu xukunka ka sii dhacayay wuxuu magacaabay 7 gobol 7 xubnood ay imka Banaadir loo magacaabayna waxaan ka baqayaa inay kuwa la mid noqdaan war hadda ka hor markii kaanka dhiyow hay madaxweyne siyaad barmay ba dadweynaha kala ballamay inoo beero faladan tii ku dambaytin wala ogaay widaayay warnimay waxaan la yaabanahay madaxweyne farmaajo 3 sano la soo dhaafay dadka lama hadlin saxaafadana ma hor imaan heshiis baarlamaanka la hor keeno madaxweynuhu soo galayna ma jiro marka hadda waxaan la yaabanahay maadaama uu musharax yahay kaambeeyna soo socdo muxuu dadka u sheegi doonaa mugama marka xeerayo fandaal kala dhaceena qayladaan la bilaaba war dogoonsana garan dumis badana mu'arnimo badana fiiri way doohan kaadalaw dadka ma hor imaan yaan dilingilay madaxweynaha qaragiisa oo markii dhii maalintii higdi fagaaraha isbartiibi dadka hortiyo
doogsidii usoo tuuto galan shabaaba ka duulanana ballan ahaa walaari shabaaba ka duulanana ballan ahaa doogka faas ma ay wariya war ma duulay war qarandamis warkiisa dhagaysanine bajaajlayaasha markay banaanbaxayeen madaxweynuhu waa kii yidhi dad dana gaar ah laha ka dambeeya banaanbaxan gacan birahan ku qabanayna war madaxweynuhu wuxuu yidhi dowladdan waa dowladdii shacabka ammaane idaacadna waa ku darsatay war madaxweynuhu wuxuu yidhi dowladdoodu waa dowlad fiican astaanta qarankana wax lagama sheego aryaadhaha madaxweyne farmaajo waagi oo ra'iisul wasaaraha naqday waxa uu dhihi jira xukuumaddayda tayo aa la yidhaa ka kadib mugga xilka laga qaadana waxa uu bilaabay qaaraan qaran walax la yidhaaho kadib mugga kaambeynka galana waxa uu bilaaba haddana danta dadka iyo dalka haddaana waxa uu bilaabay nabad iyo nolol ee berkee loo raacaa waa yaabnaye war dadka maanta xoogga wadaniyiinta ahba 2016 waxay bilaabeen barnaamij la yidhaha fursad furan oo dadka dhan min $1 looga aruuriyey maalay ku dambaysana lama yaqaan war cabdinuur iyo cabdi baaruud ayaa la weydiinayaa fursad fan meeshay ku dambaysay aryaadhaha waxaan idin weydiiyey dalkaaga $1 ku dhiso horta intay ku dambaysay war musharaxa rajada musharaxa la baxay xisbiga dimuqraadiga maraykanka Joe Biden wuxuu yidhi Ameerika waxay u baahan tahay hogaamiye macno leh oo garasho leh waryaha Ameerika hanala aadin abees ha ku cuntee Puntland waxa la yidhi khilaafkii waa ka heshiiyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa war shalay dhaqaatiir kulantay waxay yidhaahdeen dhaqaatiirtii gololay lagu dilaa haddaan waxba laga qaban dhakhtar dambe Soomaaliya kama shaqayn doono yaa ay koo shaqay hayaaba la laayay minay shaqay diidaan yaa warka hore dheg dalaq u siiha abdulo walanko daraak wade war dhaqaatiirta in la laayaa waa sharci darro dadka ka caagan dilkayna ka mid yihiin war sheekada waa laga soo tegayo maraykanku wuxuu bilaabay saxaafadda inuu caburiyo nin xoog lahaa xabagta goosta ahaa taas war qoladaasi xorriyaddii iyo xuquuqul insaanka ay sheegan jireen xagee ka baxday war caalamka oo dhan baa keebla yurur si wada bedelay war barnaamijkaas Trump baa u dhameeyey taladii baaday waxaa la yidhi 2020 caalamka oo dhan kala taris baa ka jira war maahe sabti kolaalitiisa maashi u baabaday oo naga dhaafay naga taga tawfiiqda Allah idin waafajiye kursigaasan caashaqae madaxweyne kolidhahaye waxaan ahay madaxweynaha dowladda Soomaaliland waxaan ahay madaxweynaha dowladda Jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda Galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda Puntland anna waxaan ahay madaxweynaha Hirshabeelle waxaan ahay madaxweynaha dowladda Banaadir State war ana waliba ahaa madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ay hay'ad kore waan ila qabsad kore anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda Everland ka muqdisho ee 20 sano la raadihayay waa tii la yiri 7 xubnood oo 4.5 lagu qaybsaa ayaa la soo helay ugaas maxamuud cali ugaas cabdullana wuxuu yiri waa ilhaano waana dulmi cad oo geed loogu gamban mana aqbali doono muqdisho 3 milyan oo degan xaqoor amba hal la siiyo ama hal iska daayo dawladana iyada waqtigeeru gabagabayahay isku mashquulin ummadan ma haan degan warugaas maxamuud wuxuu yiri dawladan meel laga taageersan yahay oo amarkeeda laga qaad oo canshuurta laga bixiyo muqdisho ka jirta xoolahana kuwa irmaano nacfiga la waa la dhaqaaleystaa marka maxay ugu jisaaraysaa dawladdu bulshada u daacada oo ka amar qaadanaysa war anigu ugaaska waxaan ka baqayaa raggii ay dawladdu u diyaarisay cid kastoo dhaliishaba inay u jawaabaan in ugaaska lagu soo qataaraan ka baqaya war ma waalan tahay ma ugaaska qaran dubis nin Soomaaliyeed ku sheegi kara warnimayo
brofesor doob maalin dhaweed wuxuu yidhi this is our mother town muqdisho lama wada lehe waa la wada degan yahay hadalkaas run waa u dhowye laakiin ma yeelayno arday waana qiraahedda xaanoo kaa keena mugga warnimiyo ani warsiinhay xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo guddoomiyaha guddigii doorashooyinka baarlamaanka lahan diyaari wali erey dadka muqdisho jiigan leho 24 saangay leeyaan wal haabiyara to ku jiro mal aragaw muqdishona arantiya mayba go'aan sax ee ka deero kore baarlamaanka anu waxaan qabaa xildhibaan ibraahim isaaq yarow muxuu diin darba weyne in loo ballamiyo agdisa tirrig mahakaaro kor muxuu diin darba weyne hoobu saro tirsada ibraahim isaaq yarow suna buushatay waa tirsaday waryaa warnimaya xildhibaan ibraahim isaaq yarow anigu waa la qabaa arrinkaa uu sheegay muqdishona waa caasimad soomaaliyeed cid gaar u sheegan kartaana ma jirto waxaanan ku talinayaa in guddoomiyaha gobolka banaadir laga bilaabo maanta loo sinnaado sababtoo ah aburaas iyo xasan abshirba muqdisho guddoomiyayaal bay ka noqdeen lamana buuqi jirin aryadhaha federaalkaad keenteenaa fidnada keenay minii kacaanka soo naqaa yaa taas diidan hargeysaba bila rafle iyo gaani iyo moorgana madax ka soo naqday war kacaankii oktoobar ay inkaga dhigan tahay midka febraayo miyaadan u jeedin war waxaa la yidhi soomaalidu danteediyo duruufaha dalkeediyo habkii dawladnimaday horta dabamaraysaa aryaa waxaa kaloo la yidhi soomaalidu qab iyo kiibir marna qaadan mayso wartaasi soomaalida hore ahaa war soomaalida dambe abwaan abdidhuuha sheegi soomaalidu way bugtaa basteed wayoo la hubay inuu udur ba'ani helay bidhaanta laga gartaa